بسم الله. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أدبن السلام يا قاسي ونت 5 إنسان كدي ما أنتو حنيني وضع 10 آديات مهم سنة أنت أن أبو ذكرين 10 كمهم ديسة أن كهذلو أن وجودين كان 10 كان أضوبيو كنت وحاجر وجودين بدن 10 كان أضوبيو وأمي دم وحاجري عبشوين كإيمانة يا أرضيدا كاسوه إن حيسه أونلاين كلاب بحيو ريكونك إسميان هوستيجا أما معلمين تأن واحد كحيرة ريكونك إسميان مرمخر إسم أصودن أرضيدا لينكية الفيديو شلك سودي سنة مرمخر حتى مركي أرضيدا لو صدروا لينكية أوصن أرضيدا إنتو دبلن إسم سودك سن صوبتوا إنترنت الآن أرضيدا لغيها وإيهسو لغيها وكي أرضي إنترنت كيستن يكو أدكاتو سيسو أول سودي لها مقالكا كي أنا هيسن فانزاين المقال كسيد الأسود الجسنا يعني وصل هيسن إمبي أم إنترنت وكل سود جلهاي فنتي ما أنت وايد دماتي تاسي صوبته هذا واحد إنترنت وصل كابهن أيام ما أنت سفر مقالة كويليسا سيدي أيام مقالة كويليا مقالة واحد كويليسا فنتي وحاجر برنامج آدي أوفر kaasoo loo isticmaalo recording waxaan ku caansan Camtasia wuxuu noo qabanayaa waa midkii aan maanta aan isticmaalayno Camtasia wuxuu noo qabanayaa inuu si fudud noogu duubo xiisada sababtoo waxaad ku jirtaa galaaska intaad galaaska ku jirto uma baahnin inaad sugto video banaanka kaliya markuu galaaska bilaabo recording videoga kaas oo ka saacidayo inuu si fudud kugu duubo cashirka Camtasia wuxuu fiican yahay tahay videoga lagu soo dirayo inta ay xiisad socoto waxa jirta macalinka in arday uu su'aal weydiiyo macalinka ardayga markuu su'aal weydiiyo macalinka intuu uga jawaabayo waqtiga ay dheeraado ama si kale sheeko la galo ama xiisad gaab ay soo gasho ama macalinka computerka oo gadamo ama wax ay dhacaan oo sababtoo xiisad ku joogso karto ay dhacaan si fudud Camtasia wuxuu ka caawinayaa video in voice garaato marka macalinka ardayga su'aal weydiinayo ama macalinka oo qadka oo kale inaad voice garaato videoga ama recording aad wado dan markii xiisad ay bilaabato aad la bilaabato recordingka Camtasia Studio sidoo kale wuxuu naga caawinayaa inaad si fudud video HD aad ku hesho ama video nadiif aad duubato aad ku hesho adigu wax internet ka bixin wayna flash runtii markaan arkay baahiyo badan waan fikiray kadib waxa ay soo baxday inaan barnaamijkan aan duubo haddii micnaha codkayga idin qancin yaraan noqda sababtoo waa maalintii ugu horeysay aan muuqaal duubayo then waxaan sharxayaa cashirkii Camtasia Studio horta halkee baan ka helayaa su'aasha ugu horeysa ardaygu isweydiinayo waa taas si fudud aad Camtasia Studio ku helaysaa kaliya waxay ka xigto adigoo hela 500 oo MB waa 1 GB ka yar xitaa adigoo hela ay kaga xirantahay Camtasia haddii aadan haysan aniga ayaan ku caawinayo Camtasia Studio horta halkee baan ka helayaa Camtasia Studio waxaad ka helaysaa linkigan runtii linkigan waxaan ku soo dirayaa Telegramka silmiga waxaan ku soo dirayaa WhatsAppka description videoga noo soo dhigayaa waan koobiyeynayaa Ctrl C ayaan dhahayaa waan koobiyeynayaa browserkii ayaan soo kaxsanayaa browser markii aan soo kaxsado waxaan soo furnayaa daaqad cusub halkan ayaa paste ku leeyahay Ctrl V markii halkaas paste aan ku dhaho enter ayaan leeyahay enter markii aan dhaho kaliya waxay ku xiran internetka haysato waxaa ku soo kacday shaashadan markii ku soo kacdo wuxuu ku dhahay download any version of our software-kan versionka aad rabto ka soo deg halkan ay ku qoran tahay select your product ay filaartan soo furnaysaa runtii waxa halkan yaala version aad waxa yaala in Camtasia Studio oo aad u tiro badan waa kan Camtasia Mac marka aad isticmaalaysid Apple-ka oo kale computeradaas ardaydaas wax kula talinayaa inay soo degsadaan Mac haddii Windows-kan waxa kan anfacaya Windows oo muhiim waxaan aan isticmaalo waxay tahay waxaan u baahanahay Windows la soo dego tan wuxuu ku soo furay shaashad kale select oo ku qoran tahay select your version aad rabto soo furo intaan version ay ku soo qabanayaan version aad doonto
waad adigu qanacayso soo degso sababtoo ah dhammaan farshaxanada waa isku mid. Anaa waxaan kula talinayaa inaad la soo degto farshaxankan oo 19ka May 7 soo baxay inaad la soo degto. tan farshaxanka ayaan ku dhufanayaa halkan gees ayuu iga soo qabanayaa meeshaan ka soo dhigaysanaya waa kan waa 500 MB halkan ay ku qoran tahay download ayaan ku dhufanayaa. markii aan ku dhufto automatic start download bilaabeysa hadii uusan kugu jirin IDM wuxuu ku leeyahay halkan hoose iyo si toos ah u soo fadhiisanaya programkaasi oo bilaabayo downloadka waa 490 MB start ayaan leeyahay si fudud waxay igu soo dejiyo Camtasia. aan u baahnay Camtasia inaan soo dejiyo sababtoo ah already computerka ku install gareysanay Camtasia bus ayaan iska leeyahay. Camtasia Studio markaad install soo dhahato waxa uu ku gelayaa halkan download ayaan ku gelayaa waxa uu ka sii gelayaa programs halkan ayaan ku gelayaa. almuhiim aan usoo laabana cashirkeena markii aad soo degsato waa soo install gareysanaysaa kaliya internet iska xir wax barnaamijkiisa Canva next ayaa leedahay si fudud ayuu kugu soo install gareysmayaa. tan iska xirno aan usoo gudubno cashirkeena. Camtasia Studio sida ayaan u isticmaalayaa waa kan waa soo dejistay waa install gareysay halkan ayuu soo fariisanayaa. hadii halkan ku soo fariisan waayo halkan ka sarji gareey Camtasia waa kan waan soo furanayaa timer ayuu qaadanayaa kaliya waxay ku xiran tahay computerkaaga. then waxaa ku soo baxaya shaashadan halkan waxaan ku qoran new project halkan waxaan ku qoran new recording halkan waxaan ku qoran open project. si toos ah u bilaabi kartaa recordingka waa dhigi kartaa new recording laakiin new project ayaan leenahay. intaas kadib Camtasia markaan soo furano Camtasia waa kan waa shaashadan weyn runtii waxay ku qoran shaqo aad u fara badan in wax lagu edit karo videoska editing lagu sameeyo. marka shaashadan ku soo baxdo waxaad adiga anaga waxaan noqonayaa waxay tahay recording halkan ay ku qoran tahay recording aad ku dhufanaysaa. markaad ku dhufato dan waan ka install gareysmaya shaashada yarista ayaa ku soo baxayso. shaashada yar ayaa idin sharxo aan soo koobanay runtii waqtiga waan dheereeyay waan ogahay runtii full screen waa in shaashada oo dhan uu duubo custom waa qayb kamid ah shaashada inaad duubto inaad shaashada habka duubto ama in aad aragto yar aad duubato. amaan meeshan halkan waa kamarada marka click aan ku dhaxdo automatic kamarada ay ku furmayso. halkan waa mega meesha ugu muhiimsan waatan waxaan qosayna waa mega. microphone waxay tahay wuxuu leeyahay laba qayb horta microphone wuxuu leeyahay Camtasia Studio laba qaybood labadaas qaybood Camtasia wuxuu leeyahay videoga recording marka uu sameynayo labadaas qaybood oo kala ah in systemka waxaan ka wadaa computerka wax ka daaran kaliya in la duubo waxa computerka banaankiisa ka daaran. tusaale hadda aniga waan hadlayaa inuu recording gareeyo kaliya wax computerka ka daaran uusan recording kareyn wax banaanka ka daaran ama qofka banaanka ka hadlayo. runtii waxay ila wanaagsan adigana ku wanaagsan inaad doorato optionka ah in kaliya uu ku recording gareeyo waxa system computerka ka daaran sababtoo ah waxaad duubanaysaa ayaa ah xiisa socoto. marka laga yaabay agtaada inuu buuq jiro laga yaabay inaad hadal ka dhex galo si fudud aad ugu dhigato kaliya systemka waxa ka daaran kaliya ii recording gareeyo. si aan taas ugu dhigo runtii markii si aan soo install gareyso aad furato custom ma ahan inaan ma doorno halkan soo furnaysaa marka soo furto waa labada qayb. do not record microphone waxay tahay microphone micna tusaale hadda anigu waan hadlayaa micnaha iga duubina waa waxaan qofka hadlayo duubin. record system doorto microphone array wuxuu isku qabanaya laba shaqo taas oo ah waxa computerka banaankiisa ka dhacay inuu duubo computerka dhexdiisa ficil ka dhacay inuu duubo. haddii aad tan doorato runtii waxaa ku yaraanayso inaad si fiican u maqasho maqalkii ama si kale wixii computerka ka dhex dhacay inta badan awood wuxuu siinayaa waxa banaanka jiro awood siinaya laakiin mar walba waxaa ku wanaagsan inaad optionkan aad doorato.
then waxaa noo dhiman kaliya hal optionkaas oo ah waxaa jira shortcut la isticmaalo markii muuqaalka voice aad leedahay, markii aad start leedahay, markii aad end leedahay. ma fiicno horta in shaashadan la arko inta muuqaalka ku socdo, in shaashadan la arko. marka si aysan taas u dhicin oo aadna ugu taxadirto in shaashadan la arko, waxaa jirta shortcut la isticmaalo. shortcutkaas oo ah horta waxaa jirto markii aad wax record garaynayso kaliya waa 3 qayb. inaad wixii aad record garaynayso aad bilowdo, intuu marka aad bilowdo aad voice aad dhihi karto, voice markii aad dhahdana end aad dhihi karto, ama muuqaalka oo socdana end dhihi karto. waxaa la jirta shortcut la isticmaalo 3 qayb shortcut la isticmaalo jirto, waa 2 shortcut. shortcut kamid ah waxay soo qabanaysaa 2 shaqo, shortcut kamid ah waxay qabanaysaa 1 shaqo. F9 ayaan soo qaatay, F9 waxay qabanaysaa 2 shaqo, taas oo ah start iyo voice. voice markii aan ku dhahayo ma aha muuqaal gebi ahaanba end la dhahay, voice end way kala duwan tahay. voice markii aan dhahdo muuqaalkan wuu ii socdaa iyo voice gareey, waa sida haddii aan kusoo sheegay sidaan soo sheegay. tusaale xiisad oo socoto ayaa macalinka ardayga baa su'aal weydiinaya, uma baahan marka inaad duubato qaybtaas. waxaa leedahay F9 waa voice macnaha macalinka markuu xiisada kusoo laabto, slide-ka kusoo laabto ama sigal program qoritaankiisa uu kusoo laabto, ayaa rabta inaad meeshaas kasii bilaabato, haddana F9 ayaa ku celinaysaa oo start ah. waa tiri fahantaas. end oo nimaan end waxay tahay muuqaalka gebi ahaanba xiisada way dhamaatay, muuqaalka iga jooji, waxaad taabanaysaa F10. runtii aad ayay u mahadsantihiin. horta intaan ka bixin kahor ficilka aan hadda sheegnay as practice aan u sameyno. okay hadda waxaan taabanayaa F9 si muuqaalku u start ugu dhaho. seconds ayuu ii dirinayaa, 3 second ayuu ii dirinayaa. markuu ii tiriyo hadda wixii aan computerkii aan ka daaro, tusaale computerkii hadda aan waan hadlayaa ma isticmaalayo kamatays, hadda programkan ayaan wax ku duubayaa sababtoo ah recording wuu qaadanaya hadda. laakiin hadda kamatays haddii aan muuqaal computerkii ka daaro kaliya wuxuu qaadanayaa computerka muuqaalka daaran. haddii Broway marka aad soo dejisato, Broway wixii aad fahmayso aniga ka caawinayo, lambarkayga waa kan oo isku qoran. aniga insha Allah taala waa la soo xiriiri kartaa, WhatsApp ka soo xiriiri kartaa, inaan ku caawiyo ana diyaar u ah. then hadda muuqaalka wuu socdaa, waxaan rabaa arday baa macallin su'aal weydiiyay, waxaan rabaa inaan iska voice gareeyo. F9 ayaan taabanayaa. F9 markii aan flare ma isu boodi tiyaday halkaas ama isu boodi waya, uma baahan in la arko sababtoo ah waxbaa sharxaysaa, uma baahan in halkan uu soo fuulo. okay hadda muuqaalku ay voice gareysay, haddaad ka furto muuqaalka waa stop, waa aragta stop waaye. resume saan u dhaho waa inaan F9 aan ku celiyaa. soo hor haddana bal arag waa kuu tirinaya mujida. then waxaan u baahanahay end, muuqaalkan naga dhamaan F10. waa kaas muuqaalku waa kan, halkan ayaan kusoo fuulaya. saa u aragta waa kan muuqaalka haddaan duubeyni yaray. then markaas aad muuqaalka u duubato, muuqaalku waa muuqaal HD ah, runtii aad iyo aad u fiican, nadiif ah. waxaad u baahan tahay in muuqaalkii marka export aan u dhaho ama aan u save gareysto, waxaan taabanayaa halkan ay ku qoran tahay share waxaan ka dooranayaa halkan ay ku qoran tahay local file markaan doorto halkan ayaan soo furanayaa. markaan soo furto waxay tahay muuqaalada qaabka u rabto, ma 480p ba u rabtaa 720. runtii waxa aan idin kula talinayaa aadna u fiican muuqaalka inaad ka dhigato halkan before only 108 waa 4K muuqaal. runtii waa muuqaal aad iyo aad u fiican. halkaas ayaad dooranaysaa waan HD. next ayaa leedahay project halkee buu dhigmayaa, waa dooranaysaa halkan ayaad dooranaysaa project meesha uu dhigmayo. then meesha project ka dhigmayaa dooranaysaa desktop magaca u baxa, magaca u baxay CA185 walkii CA185 u baxay. then save ayaan leeyahay. markii aan saas aan dhaho halka waa ka muuqaalkii CA185 desktop ayaa la dhigay, halkaas xabaas desktop. then finish ayaa leedahay. marka finish aan dhaho waxaan dhameynayaa timekan. runtii videogaas size-kiisu ayay ku xiran tahay. then marka uu dhameeyo
markii uu dhameystay automatic ayuu ugu soo furay. waa kan muuqaalka hadda aan duubay wuxuu hayaa 50 second waana HD waana nadiif sida ku aragtaan muuqaalka waa kan waana nadiif. runtii aad baa u mahadsantihiin sida wanaagsan aad ila socoteen. runtii qof walba u baahan qofkii faham waayo waxaan isku dayaa inaan ka caawiyo. runtii lambarkii waa kan qof walba u baahan wuu ila soo xiriiri karaa oo ku adkaato ama installation noqoto ama download ha noqoto. runtii mar walba waxaa loo baahan yahay in la iscaawiyo sababtoo ah qof walba waxaa loo baahan yahay qof kale waxa uu leeyahay inuu ka caawiyo. runtii markii aan arkay cabasho badan ardayda ka timid waxay igu dhalisay inaan soo duubo muuqaalkan. waa markii ugu horreysay aan muuqaal aan duubay. haddii micnaha cilado ay jiraan fadlan waxaa la Soomaali waa hadal badan waana faar badan tahay marka waxaa waaye faarkan ha yareeyo. aad u mahadsantihiin. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.